بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وأنا ونكسر دمانا قيرتها وذي نجدا ونيساي كسر دوادة برنامج عن كوي قدرنا هدو الله ود له وسامح أحمد مذوبي وقاميها جبلان أو كم إذا حمناها عقبضة كواجريتانكا دولة نمدا الصومالية وعن برنامج كان سجارا وقوي قدرنا سندلدا رر عبد الله وسندلدا محمد زوير رر عبد الله وقاعدين إيه كذي سنكسمانيو iyo waliba qaabka ay u dhisan yihiin xilalka ay haystaan Maxamed Subeer iyo waxaad barnaamijkan ku daawan doontaan Kenya oo boqolkiiba 70 qaadata kheyraadka laga helo ama dhaqaalaha laga helo dekedda Kismaayo. Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay xubnaha caqabada ku ah Soomaaliya in cagaheeda ku istaagto asoo kaashanaya ciidamada Kenya ee gumaysiga u jooga Kismaayo. ku dhaqan magaalada Kismaayo waa kuwa la caburiyo qaarkood waxaa loo geystaa tacadiye ka baxsan xuquuqul insaanka halka qaar badan oo ka hadlay maamulka guracsan ee ka jira magaalada Kismaayo nafsadooda ay waayeen waxaana Kismaayo haysta Axmed Madoobe oo ahaa amiir ku xigeenkii ururka Al-Shabaab walina aaminsan mabda'a Al-Shabaab qof ku sugan magaalada Kismaayo kuma soo qori kara Facebooka boosti uu kaga soo horjeedo hogaamiyaha Jubbaland haddii qofka comment uu soo bixiyo waxa loo geysanayaa xarig iyo jirdil qabiilada ku dhaqan Kismaayana waa kuwa cabursan sida beesha Shiiqaal Mariixaan Gaaljecel Ormale Baajuun dir iyo waliba qabiilada kale degan Jubbooyinka haddaba caawa waxaan idin soo gudbinayaa qaybta koobaad nidaamka maamulka Axmed Madoobe oo lagu tilmaamay nidaam boqortooyo waxa maamulka uu ka bilowday Axmed Madoobe oo ka soo jeeda qabiilka Maxamed Subeer reer Cabdulle Ismaaciil Saaxirdiid taliyaha ciidamada xoogga ee Jubbaland oo ka soo jeeda beesha Maxamed Subeer reer Cabdulle ogaadeen Maxamed Naasir taliyaha ciidamada booliska ee Jubbaland waa beesha Maxamed Subeer reer Cabdulle aadan Goojar taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland Maxamed Subeer reer Isaaq Cabdi Mahad taliyaha ciidamada Jubbaland waa taliyaha ciidamada Jubbaland Maxamed Subeer reer Cabdulle Gobooye Xasan Barre abaandulaha ciidamada Jubbaland Maxamed Subeer reer Cabdulle inta badan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxay ka soo jeedaan reer Maxamed Subeer reer Cabdulle lama soo koobi karo dadka xilalka ka haya Jubbaland ee ka soo jeeda beesha Maxamed Subeer reer Cabdulle iskaba dhaafe ogaadeenka Soomaalida kale Axmed Madoobe ogaadeenka kale waxba uma ogolo dhamaantood dadkan aan soo tiriyay waa dad ka yimid kilinka shanaad Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu geystaa tacadiye ka baxsan xuquuqul insaanka Kenya iyo Ethiopia boqolkiiba 70 waxay qaataan dhaqaalaha ka soo baxa dekedda Kismaayo haddii Axmed Madoobe ay dhalato dawlad xoog badan oo Soomaaliyeed waxa laga soo wareejinayaa dekedda Kismaayo marnana raali kama aha dekedda Kismaayo inuu ku wareejiyo dawladda dhexe ee Soomaaliya maxaa yeelay waxa meesha ka baxaya xiriirka kala dhaxeeya dawladaha Ethiopia iyo Kenya oo hadda u haya gacan ku haynta Jubbaland oo wax uu ku yahay Axmed Madoobe wuxuu kaga dugan yahay madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedyada wuxuu iska dhigaa wadani jecel dalkiisa laakiin taas waa been khudbadan aan idin soo gudbin doona Axmed Madoobe wuxuu meel fagaaraha oo madaxda Soomaalida ay joogto uu ka sheegayaa inay ku hadlaan madaxda af Soomaali aan lagu hadlin luqadda Ingiriiska laakiin odigu ma yaqaan luqadda Ingiriiska haddii wadani uu yahayna wuxuu ka hadli lahaa qadiyada qalbi dhagax oo isku reer ay yihiin baqdin uu ka baqayo ciidamada Ethiopia ayuusan arintaasi kaga hadlin shir baan fadhinaa halkana waxaa laga hadlay arrinta Soomaaliya mas'uuliyiintii Soomaalida oo dhan way ka hadlaysaa waxaan aad ugu xumahay inaan kulligan af Ingiriis lagu hadlo oo Soomaaliga laga tago horjooga Axmed Madoobe kama hor imaan karaan siyaasadiisa xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan Jubbaland xildhibaankii ka hor yimaadana waxa laga musaafuriyaa magaalada Kismaayo xabsiyada ku yaal Kismaayo waxa ka dhacay tacaddi ka baxsan xuquuqda aadamaha waxa lagu dhibaateeyaa jirdil joogtaana lagu geystaa xubnaha maxaabiista ah ee laga qabto magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenayaasha Jubbaland oo kala ah lugu dheere iyo sidoo kale Maxamuud Siid Aadan waxay fuliyaan siyaasadda horjooga Axmed Madoobe kamana hadli karaan tacadiyada qabiilada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo uu u geysto Axmed Madoobe iyo shakhsiyaadka isku heebta ay yihiin ee xoog ku haysta magaalada Kismaayo
muddo dhowr bilood ka hor ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo waxay gaf u geysteen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo u sheegay television laga leeyahay Sweden in gabdhaha Soomaaliyeed markay qaangaaraan oo la guursan waayay ay u golmoodaan wiilasha Soomaaliyeed ee la dhashay taas oo gaf ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed muusan ka hadlin Axmed Madoobe kamana hadli karo dhibaatooyinka iyo duqeymaha ciidamada Kenya ee u geystaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan jubbooyinka iyo Gedo haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa oo qaybta koowaad ee barnaamijka aad ku daawanaysaan gafka ciidamada Kenya ay u geysteen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed mkoga mazo kiza venta ayapata bwana basa atala ndo mutano musaza we ni watahondi akumi sibuchi rero numwana babyaranye kubera bari haramu niwe dobamwe history